koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalka madaniyo huwaaga tarinaya hawsha malaweeyeedhaylalaamay hadaadidayoolodila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa ila meeraysadii way soo dhammaanaysa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanan noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay low waranagu horanu goonee aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay ikhyaartii kalamaanay abwaanin dhageelle wuxuu yidhi kariimow awoodlow ka u taliya koonkee kor iyo hoos amuuraha maareeya keliyow karoonaha ayaamahan aadmiga kurbeeyiyo naga qaadkadeedko kaalmeeya eebbow naga kaafi cudurkaa irbad iyo kaniin iyo kimistari wax curiyiyo kasma waxaannu haynaba kala dhawr afkaagiyo gacmihiiyo korkaagoo kolna meel ha aadine kadinka mooye karti kale la waaye naga qaadkadeedko kaalmeeya eebbow naga kaafi cudurka anna intaas waxaan ku sii daraahow kariim allow karoonaahan kahanayeen naga korqaad kariim allow karoonaahan wakahaneen naga korqaad haye warniyow abdulow hoob lehees oo ka dabalata hoob la du'ay oo ka dabalata quraan wala agna oo ka dabalata lu du'ay ba aamin shilay ma ka kaato laami saasa bal karay may oo tirmeeta naga tag waxa tiriba lagu yiri oowduna waa wara soo baro war gudoomiyaha gobolka banaadir Cumar Finish wuxuu yiri dad aan aqaan ayaa korona Muqdisho ugu dhintay kuwa kalena waa la il daran yihiin marka dadka Soomaaliyeed waxaan uga digayaa inaan la dhayeelsan cudurkan warnamiyow maysiin warsaday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada war markii hore ka magacaawanaay ahna wasiirka caafimaadka andalay tira badan war gudoomiyaha gobolku isaga dadka mas'uulka ah wuxuu yiri dad baan wali aaminsaneen inuu xanuunkan ka jira magaalada asaatee sabab aan shacbigeena been ugu sheegnaa ma jirtee hal laga digtoonaado xanuunkan warnimayo hadda ka hor waxa la yiri nin been lagu yaqiinay yimid oo dhahaya colaa nagu soo fool leh dadkii waxay dhaheen war waa beenta hordoo naga tag ninkii dhulka ku galgashay wuxuu yiri war colku waa nagu soo dhow yahay beenta waa kugu naqaanahay si dhaheen wuxuu yiri war walaalayaal oo been waa sheegi jiray ma galgala jirin marka hadda ninkaas waxaan ku xasuustay nabadii nolol wax kasto dadka Muqdisho jooga u sheegto ka rumaysan maayaan laakiin waxaan ku talinayaa inay galgalato si looga rumaysto war dawladdu wax galgalasho oo u dhiman ma jirto sababtoo ah shaqaalihi ay ku sheegeen inuu cudurku ku dhacay sawirradooda ay soo bandhigeen war heesaatu koor may bahaaytay galgalashal gajama gooyse gabal dhamageed la koraaye madi dadkii go'aanka galgalsho bilaaween ma aha nabadi nolol war haddii la galgashay iyo haddii la iska dhaafaba waxa xaqiiqaha corona inuu cudur jira yahay Soomaaliya inuu ka jiraana waa xaqiiqo marka cudurka Ilaahay baa keenay hal laga digtoonaado warnamiyow Ilaahay may baaray bani aadanka masiibus gaandisan gashandana ma qobadaas laakiin masiibada naftiya laamiga manan jiifada
inoo leka tahdiru dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow deb hulaaqay naaqatee aan maqli jira den dambentoon dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dab hulaaqay noqotee dunida baaba'shay dalka soo galyay karoonahane ka digtoonow deb hulaaqay noqotee guriga ha ka bixin dadkana ha salaamin albaabkana xidho ka digtoonow dab hulaaqay noqotee kaasina wuxuu ahaa fanaanka wacyigelinta cudurka coronavirus cabdikuus warwar ma haysiine maydka ra'iisul wasaare hore nuur xasan xuseen berriyo jimcaha waa la aasayaa xabaalaha muslimiinta london aan lagu aasayaa war maydka ra'iisul wasaaraha inta la soo qaado dalka la keeno in aas qaran loo sameeyo miyaanay ahayn aryaxaa lagu soo qaadaa adduunyadaba karoonihii asaga dilayaa jeebeeyayo hal dayuuradoo nuuxsa karta ma jirtee oo kaale diyaaradahana ma coronavirus baa ku dhacay warwarkaan naga dhex gelinine tacsida ra'iisul wasaare nuur cadde isniintaa la soo gebagabaynayaa khayr waayo haddaan afciidka bixiskiisa arbaca laga dhigin culummaduna waxay yidhaahdeen qof kastaaba meeshuu jooguu uga qaybgeli karaa janaasada nuur cadde haa sax waay lan welba muslum emeeliusrowas janaasatulqaa'iban kudukudu kora war maydku waa badan yahe xudaydina ma jimcaha kalea lagala sugayaa dadka intaas farinjeer maa lagu haynaa warwar ma hay sida kumanaankii qofooda niyo ku dhintay waxaa la yidhi ilaa hadda lama aasinoo xabaal wadareed baa loo samaynaya marka dadkaani faranjiyeerka way isaga haystaan meydadkii ha la yaabina aryaadhaha war ma haysiine nin heer muduga ayaamahan karoone ku bata asaa war yaab luhu ka soo baxay wuxuu yidhi jinnada waxaan uga soo baxnay nebi aadan iyo abootaxaawo geed laga xaaraantinimooyey cuneen haddaanna kobolishiinaas cunay miyaa adduunyadi looga tegaa cabdullow bilow aadmiga cunna jecli baan halka reebayn war kuri yaroo iyaalkun iphoneka isticmaalayan yo maybaa dheegi jiray iphone 11 baro iyo weliba arigay covid-19 iyagolku wareersanya oo shiinaha weliba dooligi sidii inqaamaw yo markaas mayaska jaray shiinaha may baatinin diyaariyo hayaana covid-20 baro haliinkooba adduunyada ay ka hirnay ahaahe warwar ma haysiina hay-adda WHO maraykanka intaan karoonuhu ku faafin ayay u digtay donald trumpna wuxuu yidhi warkeeda waxba kama jiraan waa fududaystay ayaan dhowaadna barasaabka new york wuxuu yidhi WHO hadalkii madaxweynuhu ka diiday maantaa la hayaa cawaaqibkiisii kadibna odo trump oo arrintaas ka xanaaqay wuxuu yidhi WHO lacagtaan sii jirnana waa ka jaraynaa waana fashilantay shiinaha iyo shuuciyaddayna la shaqaysaa fori kadibna madaxa WHO ayaa hadlay wuxuuna yidhi donald trump cudurkaani waa cudur halis ee siyaasadda ha ka daaya iyo wararka maalayacniga waa runtiis sababtoo ah hadday WHO wax qabanayso donald trump psychology ahaan uu xanuunsan yahay may daaways war WHO wadamada afrikaanka cudurka naga sheegay leeyihiin donald trump in laga sheego diidaya wariya donald trump dhaqaaliga ka baxe wadamada afrikana dhaqaaliga weydiiyo hayaan war tataros dhaganos aninos ninka la yidhaa oo WHO madaxda ka ah nin Itoobiyaan waa la yidhaa qaraabo aan nahay marka Trump muxuu ka rabaa aryaa Muuse saadu joogta beriga ma waxaad keenta takaros nagaros oo Itoobiyaan aan qaraabanaha beriga war Muuse ma iga falaas beriga um Itoobiya walaalaanahay meel walba ku weerasay madi ma jimaba war idinka ha ka harinay isdhaxgalka geeska Afrika iyo Laatiinka dhex dhalatay warwar ma haysaana waxa la yidhi hogaamiyaha dimuqraadiyadda geeska Afrika waa madaxweyne Afwerki hogaamiyaha isdhaxgalka geeska Afrikana waa ra'iisul wasaare Abiy hogaamiyaha la macaamilka labadoodana waa madaxweyne Farmaajo la yidhi guda wariya nabadoonka geeska Afrika uu Farmaajo aryaadhaha war ma haysiina hogaamiyaha geed fadhiga geeska Afrika waa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle orada real arrinta sheegteen looma dhama xaqad Muuse biixo uga tagteen argaboosow iska aamus Muuse ku ilaaba la yiri war gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan wuxuu yiri caalamku hadayna aqoonsan waayeen faraha han nagala baxeen oo han daayeen aryaadhaha ra'iisul wasaare khayr karantiiro isgaliyaa la yiri warkaasu maruna ma sawaabeen hadduu run yahay life uu soo geli lahay ilaa warkaas been ka dhig sababtaa xooga wadaniyiinta dhan waa ka qaadayaan hadduu run yahay aryaadhaha agaasimihii guuda wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala waa la karantiila la yiri maruma ma sawaabeen iyaduna war agaasimaha isbitaal Banaadir Fartuun Shariif aabaheeda dhintay Allah u naxariiso qaraabadana samir iyo iimaan Allah ka siiyo dadka Soomaaliyeedba Allah ilaahay Al-Cadaalana samir Allah ka siiyo waan uga tacsiyayna warwar ma haysiin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo berbadi ku taala jooga wuxuu yiri odayaasha qaqaylinay afaaraha Soomaaliland faraha kala baxaan haddii
kale sidii dad korona qaba camal aan qoratiilena war wasiirka beeraha Puntland wuxuu yiri 3 bilood ee soo socota cunto nagu filan waa haysanaa xuduudahan waa xiraynaa war waa la yaabe Puntland yey xuduud la leedahay adeer Somaliland qarannimadeeda cidda firi kartaa ma jirto xuduudaheedana way ilaashanaysaa warnimada waxa la yiri America markay korontada ka tagto waxay isku dayaan inay la hadlaan shirkadda korontada si ay cilada u ogaadaan Shiinuhuna markay korontada ka tagto inay sameystaan bay isku dayaan laakiin Soomaalida markay ka tagto bannaankay u soo baxaan xaafadahayna fiirfiiriyaan markaas waxay dhahaan iska daa xaafadaha ranay ka maqan tahay war saas ma ana naga tag Shiinaha markii coronavirus ku dhaco waxay isku dayaan inay ka hortagaan Mareykanka markii coronavirus ku dhacana waxay isku dayaan faranjiyeerada meydadka ku aruurin lahaayeen inay sameystaan Soomaalida markii coronavirus ku dhacana waxay isku dayaan dhamaantiis inay inkiraan war magaaladii Wuhan ee corona ka bilowday Shiinaha xayiraadii waa laga qaadaa leey Wuhan biyaha ho meydeen aryaadaha waxaana xaan nooga jira unkaaba xayiran adeer aabba wax nuusin yahay الله عافيه dhakhtar baan rabaa inaan u wada aabe الله ونحريستو adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku yiri الله ونحريستان anna ku yiri maxaa ka wadaa dhakhtar sawkii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha ee haddana faylka dheer loo gelayay sow maaha nacam adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oo caalamka kale ka jirine 10 dhiig 10 dheecaan كمبيوتر راجو إسكان iyo wax kale la sheegi karin ku dirayay Soomaha Allah ilaaha ha markuu intaad haysatayba ka wada xanyuubiyo hadana dawo farmashigiisa taala lana tayaatan suuqa taala kana qaalisan ku sii qorayay ma waa asiibtay hadaba walaalkay Allah u naxariisto adeer waa yaabanahay dhaqaatiirtu masidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa kuweena oo kaliya ma xitaa kuwa ajnabta loo yimid iyaga keenayo waa isku mid yaasinka ay ku maamaada feeri kanjeelo forget muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war waxa la yiri kursi baanu koolkoolinaa kuray sidiisii xil karoona lagu doonayaa waa kan oo kale gabaygaaga waa qaran dumis yaa kala sikada yaa idin kala jooga wala taaban hatta bawda naga taga corona allidin kuma ride kursigaasan aasaqay madaxweyne koli dhahaye waxaan ahay madaxweynaha dawladda Soomaaliland waxaan ahay madaxweynaha dawladda Jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dawladda Galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dawladda Puntland anna waxaan ahay madaxweynaha Hirshabeelle aniguna waxaan ahay madaxweynaha Khaatuma State waxaan ahay madaxweynaha dawladda Banaadir State waraan waliba aha madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ay hayso kore waan ii gob sida kore anna waxaan ahay madaxweynaha dawladda Everland daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta hanagala masuugin ku soo dhawow YouTube channel-keenani